Assalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada caawa iyo ciyaarihii Manchester City ee ku qaabishay gurigeeda Etihad Stadium ee Arsenal. Kulankan ayaa isha lagu hayay, caalamka oo dhan ayaa wada fiirsanayay. Kulankan wuxuu u ekaayay in lagu go'aamini doono in Arsenal ee koob la'aanta ka haysata 20 sano ee lasoo dhaafay. Runtii Arsenal ayaa gool looga hormaray, Erling Haaland ayaa gool ku hormaray. Kadib Arsenal saxiixeeda cusub ee Calafiori ayaa kasoo bareejiyay, kadibna Gabriel ayaa ugu daray. Kadibna Manchester City aakhir saac iyadoo 1 daqiiqo dhiman tahay ayay iska bareejeysay halkaas oo 2-2 lagu kala baxay garoonka. Runtii halyeyadii u ciyaari jiray Manchester United iyo Arsenal u soo ciyaari jiray samankii horey, waagii horey ee ka wada fadhiistay kubadda cagta ayaa Arsenal u riyaaqay in ay tahay in iska celin karto Manchester City. Halyeyadaas ayaa u arkay Manchester City inaysan micnaha kooxaha kale Premier League inaysan awood u haynin inay iska dhiciyaan, maadaama 4 goor oo xiriir ah Manchester City ee koob ku qaaday. Marka Arsenal waxaa leeyahay war inaad ku badiseen bay ahayd Etihad Stadium, walow oo half-kambi koowaad Arsenal Rosa laga siiyay Trossard. Kadib 10kaas nin ayay ku halgamayeen ilaa ay 97 daqiiqo markay gaartay oo laga soo bareejiyay. Arsenal ayaana hogaaminaysay intaasoo dhan. Marka Gary Neville iyo kuwa kale waxay dhaheen Arsenal waa inay badisaa, macnaha Arsenal ayay taageersanayeen sababtoo Manchester City waa la nacay sababtoo guulaheeda ayaa badan oo xitaa 4 xiriir oo koobka Premier League ay qaaday, kana shanaadna in ay ku darsan karto. Marka waxaa leeyahay Arsenal war nafis ku yeela. Arsenal hadda waxay haysataa difaacyo oo khatar ah ay haysataa, dhexdan way ka dhisan tahay. Marka weerarkana waa inaba caadi ahayn, waa dhalinyaro isku toosan bay heshay. Arsenal 20 sano ayay koob la'aanta Premier League. Waxaa leeyahay in ay qaado Premier League ama Champions League weeyaan. Marka Pep Guardiola ayaa isagana hadla wuxuu dhahay kooxaha kale dhan cadow bay nagu yihiin, waxay rabaan in anal ka badiyo, waxay arkayaan anaga oo koob badan aan ku guuleysanin xitaa waxay rabaan in nalka tirtiro kubadda cagta dhan. Ganaaxaasna ayay wada sugayaan. Marka ganaaxan wuxuu dhici doonaa 2025 ayaana la sheegi doonaa. Erling Haaland oo goolkiisa 100 Manchester City u dhaliyay kaliya isagoo saftay 105, wuxuuna bareejiyay rikoorkii u yaalo Cristiano Ronaldo xilli uu Real Madrid uu joogo. Wuxuu ciyaaray daqiiqooyin 8225 daqiiqadooyin ayuu ciyaaray, 100 goolna waa u dhaliyay, 14 waa u caabiyay. Marka Haaland waa kaas xalay caawana wuxuu ku tuurtay gooshiisa ay ku tuurtay. Dhanka kale Haaland ayaa lagu qabtay isagoo oo Gabriel madaxa kaga tuuray baloonta, kadibna meeshaas buuq baa ka dhashay. Guardiola wuxuu leeyahay dadkan anaga waxay doonayaan in la ganaaxo oo xitaa kubadda cagta dhan la tirtiro ayay doonayaan, waayo way ka masaysan yihiin wadaaga guulaheena badan ka aan guuleysanayno. Runtii Manchester City waxaa u soo socdaa ganaaxaas hadduu ku dhaco bes weeye, xitaa ciyaartooydanita oo qiimaha sare ugu fadhiyaan inay ka tagi doonaan, xitaa Guardiola inuu ka tagi doono. Dhanka kale Arsenal goolkiipahooda ayaa lagu arkay garoonka banaankiisa isagoo lugta u duuban in uu dhaawac u noqday. Marka waa loo yaabaa isagana. Dhanka kalena caawa waxaa wada ciyaaray Brighton iyo Nottingham Forest. Waxaa lagu bixiyay 3 kaarcasaan ayaa lagu bixiyay.
xilli labada tababare iyo ciyaartooygaas Gibbs ay qaateen halka kalena Manchester United ayaa tartan adag kala kulmaysa ninkan Robinson oo ciyaaro Fulham xilli Manchester United ay doonayso inay iska bedesho shaxdeeda. Dhanka kale Malaysia iyo Luke Shaw oo dhaawacayaal ah cisbitaaley ah ayay doonaysaa ninkan inay ku bedesho, laakiin Liverpool ayaa ku garaaci doontaa. Dhanka kalena AC Milan iyo Inter Milan ayaa wada kulmay, labadan oo Italy ka wada ciyaar, labadan kooxood oo Italy ka tirsan. Xagga AC Milan oo 2-1 ku garaacday Inter Milan. Dhanka kalena Barcelona ayaa iyadana 5 ku garaacday Villarreal xilli Lewandowski uu dhaliyay 2 gool uu dhaliyay. Lamine Yamalna wuxuu ka qaatay doorkiisa ee caawinta gool dhaliyaha kooxdiisa saaxiibyaalkiisa. Marka Barcelona waxay hoggaan ku qabatay Real Madrid oo 4 dhibcood ee ka horeyso. Waxa weeyaan Barcelona iyo Real Madrid waxay isku faanayaan gool dhalinta xilli Real Madrid ay bilowgii ka jiiftay, laakiin haddana ay soo kacday. Mbappena una ka shaqeynayo hadda. Waxaa leeyahay El Clasico waxa u dhexeeya Mbappe mise Lamine Yamal ama Lewandowski. Dhanka kalena isla Barcelona goalkeeper-heeda ayaa isagana la qaaday xilli uu dhaawac xun uu soo gaaray. Marka Barcelona iyadana way dhudin doontaa haddii ay dhaawacyadaasayto ku fara bataan.